halkan waxaan doonayaa inaan ku duubo caawa casharkii labaad ee ku saabsanaa cookbook point of sale programka loo yaqaano cookbook point of sale oo ah 2018. casharkii hore waxaynu kusoo aragnay qaabka loo install garaynayo cookbook point of sale computerka, qaabka lagu shubayo oo aad ka heli kartaan channelkan Somali Veterinary la yiraahdo. casharka maanta ku xiga waxaynu doonaynaa waynu joognaa daaqadii, waynu joognaa cookbook point of sale waynu furan tahay, bal waxaynu eegaynaa xoogaa yar oo ku saabsan programkan iyo qaabka loo isticmaalayo. programka marka koowaad waa program integration la leh ama la shaqeeya programka kale database loo yaqaan cookbook program. marka programkaas ayuu yahay accessory u adeegaya habeenkii. programka waxyaalaha lagu iibiyo transactionada dhammaantood wuxuu u import garaynayaa oo qabadsiinayaa cookbook programka loo yaqaano. marka waxaan eegaynaa balwaan program qaabka la isku xiro programka laftigiisa qaybihiisa sida itemyada loo create gareeyo, customerska loo create gareeyo, waxyaalo badan baan eegaynaa. bal inta marka hore aynu furno programkeena hore cookbook kii caadiga ahaa. haddii programkii cookbook ahaa tagno halkan shaashada ayuu yaalaa, aynu furno programkan. waxa weeyaan programkan qaabka la isku xiraan arkaynaa, bal waxaa daawasho wacan si fiican ila socda. casharkan wuxuu ka mid yahay casharadeenii itusoo taabsi. waxa weeyaan daawasho wacan. programkiinaas intuu inoo furmaayo waxaynu iska tegaynaa programkiina way ku noqonaynaa cookbook point of sale-ka. cookbook point of sale-ka markuu qaabkan kugu soo baxo waxa weeyaan kan ma cookbook point of sale kan waa cookbook caadiga. cookbook point of sale aan qabto waa kan cookbook point of sale waa programkan. haddaba bal waxaynu eegaynaa sida itemka loo abuuro, itemyada marka inventory lagu guraayo bal qaabka loo geliyaynu eegaynaa. waxaynu tegaynaa halka ay ku taalo item list. item list markaynu tagno waxaynu ku dhufanaynaa halka ay ku taalo add markaynu ku dhufano halka waxaan gelinaa itemka magaciisa baynu gelinaynaa. itemka magaciisa ayaynu gelinaynaa. bal waxaynu ka soo qaadaynaa hematon, waa sharoobo magaceed hematon syrup. markaan halkaa geliyo halkaas sidii caadiga ahayd waxaan ka dooranayaa inventory baan ka dooranayaa. inventory markaan ka doorto halkaa department uu leeyahay, department-ka ka tirsan tahay. iminka system waa department isagoo automatically inuu dooray si default inuu abuuray, laakiinse waxaad abuuran kartaa department-ga aad u baahantahay. marka inagu bal systemkeena aynu deysano sharoobadaasi waxa weeyaan wadankeedana ku qorina waa iska description hindiya weeyaan. tusaale ahaan baan uga jeedaa hindiya ka soo qaadaya halkaa quantity-ga la gelin imisa xabba ka yaala sharoobada hematonta. waxaa ka yaala 80 xabbo cost price-ka la siinayo inagu joogta waa sheegaya ayaynu halkaa gelinaynaa. halkaas waxaynu joogtaa $1 baynu joogtaa. halkaas waxaynu gelinaynaa qiimaha aynu siinayno inagu kaynu siinayno dhowr markaas aan raado. halkaas waxaynu gelinaynaa qiimaha aynu siinayno, waxaynu siinaynaa $2. halkaas waxa weeye waxaad ku aragtaa halkaas UPC daas waxaa la geliyaa barcode-ka. markaas waxa weeyaan computerka waxaa kugu xiran gacanta yareed ee akhriyaysa waxa barcode-ka akhriyaysa. halkaas ayaad saaraysaa dadna barcode-ka ku beegaysa gacanta yar barcode-ku akhriyay halkaas. marka halka aad barcode-ka ku beegtid waad save garanaysaa, save baad leedahay. iminka wax barcode ma laha, inagu saasaan ku save garanay qiimayaasheedii wixeedii saasaan ku save garayna. saas oo si itemyada loo geliyo markasta waxay tagaysaa aad doonaysa inaad item abuurto, waxay tagaysaa item list, waxaad kasii doonaysaa add. halkaas aad itemyada ka gelinaysaa ood ka abuuraysaa item kasta. qaabkaas waa qaabka loo abuuro itemyada. markaad itemkaas u abuurto bal waxaad eegaysaa customerka laftigiisa qaabka loo abuuro. customers marka la abuurayo waxaad eegaysaa halka ku taalo customers, waxaad eegaysaa new customer markaad ku dhufato
halkaas waxaad qoraysaa customerka magaciisa koobaad waxa weeyaan Cabdirasaaq. marka soo qaad tusaale ahaan Cabdirasaaq, magaciisa labaadna waa Omar, waa Cabdirasaaq Omar. waayahay halkaa waxaad ka dooranaysaa wuxuu yahay Mrs. Master waxa weeyaan master baan doortay. halkaa haddii aad u baahantahay kumbaniga u shaqeeyo waxa informationkiisa, telefoonkiisa, streetkiisa, magaalada joogo waxa inaad gashato waad gashan kartaa. waxaasoo dhammaystiran macluumaad ah waad gelin kartaa. marka waxaad leedahay save baan oranaynaa. customerkana qaabkaasaa loo save gareeyaa, loo abuuraa customerka. fenderka daba qaabka loo abuuraa. fenderku qayb buu iska leeyahay purchase. marka wax laga qabsanayo halkaasaa la tagaa fenderka. item receipt waa itemka ka qabso fenderkii. haddaan item ka qabsanayo fender waxa weeyaan halkaa fenderka magaciisa waan ka dooranaya. fenderka magaciisa markaan doorto waxa weeyaan waxaan u bixinayaaba Faarax. waa nin aan alaabta ka soo qaato aan fender u ahay. markaan ka qorto save baan leeyahay. save markaan idhaahdo Faarax waxaan ka qabsanayaa item ayaan ka qabsanayaa. bal waxaad ka soo qaataa inaad ka qabsanayso hematonta laftigeedii. hematonta hal door bay nagu joogtay. okay masax baan ka qabsanayaa. waxaan ka qabsanayaa 89 xabaan ka qabsanayaa. okay baan leeyahay. marka waxaan leeyahay save only. qaabkaas ayaa customerka alaabta looga qabsadaa, loo abuuraa, loona save gareysta. markaad intaas aad soo dhaafto waxaynu eegaynaa haddaba sida customer wax looga iibiyaa. customerka laba qaybood wax laga iibiyaa, ama deyn baa wax laga iibiyaa, ama wax customerka wax laga iibiyaa ama wax laga iibiyaa cash. haddaba waxaynu eegaynaa customerka sida cash wax looga iibiyo customerka. marka wax iibinaysid markasta wax iibinaysid ama deyn wax ku iibi ama cash wax ku iibi. markasta aad wax iibinayso waxaad tegaysaa halka ku taalo make a sale baad tegaysaa. make a sale markaan ku dhufto halkaa waxay soo baxaysa option fara badan bay soo baxaya. optionadan inta doontaa lagala soo haraa. inta badan waxaan isticmaalaynaa account oo ah amaahda iyo cash oo ah dadka cash wax ka iibi. halkaa waxaan ka dooranayaa qofkii baan ka dooranayaa wax ka iibinaya customerka ahaa. markaan doorto Cabdirasaaq oo markaan doorto waxa weeyaan waxaan ka iibinayaa alaabta. waxaan haystaa keliya hematon sayr. markaan ka iibiyo imise xabaan ka iibiyaa asagoo hal buu dhifoorto haystaa. kaasa laga kordhinaya 2 3 4 5 waxa laala xadoonaysaa. kaasa laga kordhinaya inta doonaysid aad ka iibso. kaasa ka kordhinaysaa. markaad qaabka u kordhiso waxa weeyaan waxaad ka siinaysaa $2 ay taaganta. $2 baan ka siinaysaa. waxaan ka iibiyaa 5 xabo min $2 waa $10. haye ma cash ma wax ka iibinaya mise ama wax ka iibinaya? bal waxaan wax ka iibinaya cash baad dooranaysaa. cash marka doorato save baad leedahay. save marka tiraahdo save only ayaad ku dhufanaysaa. waxa weeyaan saasaan wax ka iibiyay. mar labaad bal isaga ayaa idin tusayaa oo wax laga iibinayo ama wax laga iibinayo. sidoo ama wax laga iibinayo. waayahay Cabdirasaaq Omar waxaan ka iibinayaa hematonta laftigeedii ayaynu ka iibinaynaa. iyadana waxaan ka iibinaynaa 5 xab may halka ma loo kordhiyo inta laga iibinayo. kaasoo laga yareynaya. kaasoo mayska kaasoo pluska. waayahay isna 5 xabo ayaan wax ka iibinayaa ama waxaan ka iibinayaa account baan tagayaa. account markaan ku dhufto waxaan leeyahay save markaan idhaahdo su'aalahaas isi weydiinaya. okay waan leeyahay wuu saxaya. markuu saxo halkaas waxa weeyaan markaad save garanayso khaliya. haddii beritika ku xiran yahay doonso qofkan inaad usoo saarto warqadan aad wax kaga iibisay save and print baad leedahay. haddii aad leedahay kama noqon waad iska kansalayso cancel baad leedahay. haddii aad leedahay hodhow iyo xasuusi oo programka uu ku yarahaynayo put on hold badaransa on hold yargeli. markaas on hold buu ku yargelin hodhow tole ayaad eegaysaa. dabeetana markaas aad on hold ka qaadaysaa ama iska kansalaysaa. waad ka rasha ka sanad macnaheedu weeyaan on hold yargeli. marka anigu waxaa kama sheekaysanay iminka ama waxa ka iibiyay ninkan waxaan leeyahay save only markaan leeyahay. markaan idhaahdo
waan iska noqonaya home baan markasta laga noqdaa home baan tegayaa home markaan tago iminka nin customer ah ayaan marna waxaan wax kaga iibiyey jarba waxaan ka iibiyey marna waxaan kaga iibiyey ama marna cash baan wax kaga iibiyey bal waxaynu eegaynaa halka maanta daily laga eego daily transactions halka laga eego daily transactions ka marka doonayso point of sale-ka inaad eegto waxaad tegaysaa halkay ku taalo reports baad tegaysaa markaad reports tagto waxaad tegaysaa sales markaad sii doorto details baad dooranaysaa halkaa details markaad aragto waxaad aragtaa marna sales baa wax lagaga iibiyey labadii qofkii mar account baa wax lagaga iibiyey ama account baa ku hor qoran waad aragtaa halkaa hortiisa account markana waa cash baa wax lagaga iibiyey haddii aad doonaysid maanta bal cashka kusoo galo duleega inaad eegto reports baad tegaysaa report markaad tagto payment baad tegaysaa payment summary baad tegi kartaa payment summary cashka soo galay maanta waa $10 ayaa maanta soo galay amaahda maanta ay ka baxdayna waa iyadana $10 oo akoon ah oo ninkii laba jeer wax ka iibiyey labada waa $10 maanta halkaas waa qaabka transaction loo sameeyo ee loo eego transactionada aad gelisay programkaaga fenderkiina waynu eegnay iminka fenderku wuxuu nagu leeyahay lacagtii aynu ka soo iibsanay hematonka ninkii customerka farax wuu nagu leeyahay fender inaguna customer Cabdirasaaq Umar leeyahay $10 baynu ku leenahay cashna 10 baynu yaala caawa waxa la doonayaa in la xiro transactionada horta intaan xidhin bal daily intaan xidhin daily marka la xidhayo waxa la dhahaa end of day maanta way dhamaatay end of day baa la tagaa bal waxaan doonaynaa inaan isku xidhno labada program qaabka la isku xidhayo labada program marka la doonayo in la isku xidho marka koobaad waxa la tagayaa halka ku taata financialka waa halka la iska xidho financial markaad ku dhufato financial center baad tagaysaa financial center markaad tagto waxaad ku dhufanaysaa set up cookbooks connection now halka markaad ku dhufato wuxuu ku leeyahay you need to start the cookbook now waad u baahan tahay next baad leedahay wuu searching garaynayaa cookbookii buu doonayaa inuu ku xidho congratulations point of sale has been successfully connected to the cookbook waa lagu xidhay finish baad leedahay datadaadii oo dhan cookbook la qabadsiinayaa oo loo dhoofinaya datadaadii oo dhan cookbook ayaa loo dhoofinaya datada aan ku qabanay cookbook la qabadsiinaya yahay markaas okay baan leenahay finish baan leenahay finish markaanu naano bal waxaan tegaynaa cookbook waxaan eegaynaa qof fender ah baynu eegaynaa oo lacag inuu leh okay weli ma soo dhoofin datadii ayaanu malaynayaa waan isku xidhay aan update gareeyo end of day maalintan transactionkeeda waan xidhayaa waxaan tegayaa halkay ku taalo end of day markaan tago halkaas aan saxayaa halkaas waa inay today ku ahaataa waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inaad daabacato transaction shalay tolaha marka today waa inakaas ku taagan tahay halkaasna waa inay ku saxanta iminka bilaa tik weeyaan exchange data with cookbookska haddaan halkaas ku saxsanin waxba kuu goyn maayo iminka already dhibaatadan ku dhacday waxay ahayd halkaasaa inaga maqnayd iminka saxaynaa marka iminka saxan waxaan leenahay start markaynu nahno waxaan leenahay okay baynu leenahay select baynu leenahay datada wata cookbook kiskiba qabadsiinaya datada cookbooki ayuu datada qabadsiinaya halkaas shaashada ayaynu ka eegaynaa soo update garaynayo marba qaybta update gareeyo uu saxaya ka bacdi waxaynu geli doonaa insha Allah cookbookiina ayaynu tegi doonaa closes kale warqadan yar waa tan warqadan baa kusoo baxaysa warqadan waa warqada sheegaysa habeenkii qaabka wax kusoo kala galan ku sheegaysa haddaan yara weyneeyo aan yara zoom gareeyo tan laftigeeda today qaybaan ka zoom gareeyo aan yara doono halkaa baan ka zoom gareynaya suga 150 ka dhigo halkaa waxaad ku aragtaan halkaas sales adjustment halkaa total sales oo dhan isku keenaya waxaad aragtaan net sales activity waa 20 ka wixii la iibiyey 10 ama lagu iibiyey 10 lagu iibiyey cash haddaba wuxuu yiri charge of account inta charge waxa weeye amaha charge to account lacagta amaha lagu iibiyey $10 waa $10
lacagta amaahda lagu iibiyey lacagta kaashka lagu iibiyeyna waa $10 marka halkaas waa kaa ku qoray halkaa wuxuu yahay total available for deposit lacagta loo heli karo in la deposit gareeyo berito la akoonka waa $10 markaas $10 waa sayska cadaanka 10kaasna waa akoonkii lacagta deynta ahayd weeyaan haddaynu hoos u socono in yar haddaynu hoos u socono waad aragtaan halkaa wuxuu ku qoray account list listkii akoonka ahaa ninka la yidhahda Mr. Cabdirasaaq Cumar $10 waad ku leedahay macnaheedu weeyaan kaashka kusoo galayna waa $10 halkaas warqadaas reportka la daabaco habeenkii ee lagu xisaabtamo ninka kaashiyarka ama khasnajiga lagu xisaabtamo maanta barnaamijkii lacagtu ka doonaya waa $10 khasnada ma ku haysa saamaanihiidu weeyaan haddaba waxaan tegaynaa cookbook waxaan eegaynaa dadkii iyo transactionadii inuu inoo soo dhoofiyey baynu eegaynaa ilaa waxa weeyaan ka database markasta loo noqonayo marjicaahi waxa weeyaan cookbook weeyaan markasta ka loo noqonayo waayo customerska haddaan tago waad aragtaan Cabdirasaaq Cumar Axmed waxa weeyaan $10 ayaa lagu leeyahay mar kaash baa wax laga iibiyey oo kaas isagu siro gareeyay haddaan furo qaabku siro garaynayo waxa weeyaan waa kaas wax laga iibiyey hematontaas laga iibiyey $10 waa taa POS-ka waxa loo soo gaabay point of sale cash baa laga qaaday waa minus waa zero lacagta laga qabsay ninkaas halkan haddaan eego tii amaahda ahayd waa tantii amaahda ahayd waad aragtaan hematontii waa taas iyadoo ama waxba lama siro garay bay ku qorantay ninka lacagtii qaabkaas waa qaabka uu soo import garay xagga kale funderskii ninkii funderka ahaa aynu alaabta ka soo qaadanay wuxuu ahaa Faarax $89 uu nagu leeyahay alaabteenu ka qabsanay waa tan waa sharoobada $89 xabalka $1 lagu dhiftaa kaas iska sax iska fiican tahay inaad alaabta receipt garayso okay iska dheh qaabkaas ayuu soo gudbiyey reportkii loo soo gudbiyey bal waxaynu eegaynaa intaynu ka bixin weli cookbook point of sale-ka waxaynu eegaynaa qaabka iyada laftigeeda back-upka looga qaado habeenkii marka back-upka laga qaadayo ilaa isaga laftigiisa back-up baa laga qaadayaa waxaan kaloo eegaynaa halkan laftigeeda note yar baad ku aragtaan halkaa waxyaalaha xasuuska ah waa la iska qortaa oo iska xasuus qor doonayso inaanad ilaawin markaad kaashka xidhayso ha ilaabin baad ku qoraysaa dhash waxun baad ku qoranaysaa qofkii inaad lacagtii u dirto ama kasoo qaadato laftigeedu waa note halkaas iska leeyahay back-up marka la sameynayo halkii caadiga waa la tagaa faylka waxaa la back-up data waa la tagaa back-up datada marka la tago waxa la doorto meesha back-upka la dhigayo back-upkan waxaan dhigaya shaashada markaan dhigo waxaan bixinayaa ka open baa leeyahay markaan saarado back-up baan oranaya back-upka qaabkaas ayaa looga qaadayaa waad aragtaa back-upka waan ka qaaday back-up creating finish baan leeyahay back-upka waan ka qaaday haddaan shaashada tago aan eego waa kaa wad aragtaan waa adiga arkay waa ka back-upkan kaasoo dhigay qaabkaasa back-upka looga qaadaa marka lasoo restore garaynaya back-upkana faylka baa lagu noqdo marka fayl lagu noqdo waxaa la tagaa halkay ku taalo company operations markaad tagto halkaas hoose restore from back-up ayaa tigaysaa next baad leedahay next markaad tiraahdo waad furaysaa halkaa kasoo qaadayso desktopka baad tigaysaa desktopki markaad tagto kacdi baad dooranaysaa open baad leedahay next waan soo celinaya iminka waxaa laga yaabaa inaan computerka tago aan ku shubo point of sale-kii dabeetana back-upkayga aan flash ku shistay ayaro dhalatay aan dib ugu soo restore garayo companygayga aan qaabka u furto point of sale-ku uu jilicsan yahay qofku hadduu yaqaano cookbook programka hadduu yaqaano qofku waxa weeyaan wax dhibaato ah kala kulmi maaya point of sale-ka
marka laga reebo installationkiisa ayaa yara dhib badan. Installationkiina sawaanigii tusay qaabka internetka inta la isku afgareeyo loo install gareynayo. waan soo celiyay backupkii. okay, backupkii uu soo noqday iminka. waxaa kale aynu eegaynaa qaabka alaabta loo celiyo. waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood in alaab qofkii ay ku khaldantay ama qofkii uu soo celiyay, bal qaabka ritaanka loo sameeyo. ritaanka credit memo return cookbook oo kilaha waa aragtaan qaybta cookbook oo ku leeyahay. waa taas, waa qaybtaas return refunds and credits. waa customer markuu alaabta kugu soo celiyo kale laga celiyo. bal imika waxaan eegaynaa kan laftigiisa. ninkii ay wax ka iibinay ama wax ka iibinay Cabdirasaaq Cumar loo jiray ayaa wuxuu nagu soo celiyay alaabtii ayuu nagu soo celiyay. inagu waxaan doonaynaa inaan ku celino $10. waxaan tegaynaa I want to ku taalo. waxaan ku dhufaynaa accept return exchange. markaad ku dhufato halkaa waxaad ku raadinaysaa taariikhdii ayaad ku raadinaysaa 11 baan ku raadinayaa. bishii 11 2018 waa kaas oo idinka arkaa lacagtan kaliya ka santiga ku dhufanayaa. halkaa waa kuwa tigidhka celisaad ku qoraysaa. hal item bay ka qaato Amazon. haddii aan halka item ka celinaa kaasaan ku qorayaa. haddii ay agaas itemada fara badan ay haayeen aan qayb ka celinaya kaasaan ku qorayaa. iminka waxa weeyaan waxaan ka celinayaa 5 waan ka celinayaa ayaan dhiri waan saxay 5 item buu ahaa 5 waan ka celinayaa. waxaan tagayaa add select items markaan tago waad aragtaan qofkan marka hore alaabta wuxuu ahaa waxay ahayd ama way ahayd baan malaynayaa mise toolti cash-ka ahayd. qaabkoosun baa loo celinayaa adugu markay qofka aan doonayn in lacagtii ay laga jarana waxaad tegaysaa account. markaad doonayso qofka lacagta loo celiyana cash baad tegaysaa. saasaynu ku dhaafinaa. iminka watan wakii cash-ka ahayd baan malaynayaa qaabkaasaynu dhaafinaa. sales baynu tegaynaa, details baynu tegaynaa. waxa weeyaan waad aragtaan waa ka qaabkaasaa loo celiyay. cash bay ahayd, cashka qaabkaasaa loo celiyay. qaabkaas fudud ayaa loo isticmaalaa programkan. waxaan eegaynaa on hold-ka handeerta idiin sheegaya. marka wax la haysto on hold-ka ah shay baad iibisay. shaygii markaad iibisay kaad marisay cash-ka aad ku dhufatay ayaad intaanad safe aanad oran baad ku qabatay hol baad gashanaysaa. hol markaad gashato xaggan buu kaaga muuqanayaa. hodhowta danaysaa waa maxay message-ka halkaa ka muuqda ee on hold-ka ah waad furaysaa. markaad furto view baad tegaysaa. view aan hold-ka ka qaad baad tegaysaa. markaa markaad eegto waxaad fahantayba in imaga hore khaladaska ahayd cancel baad iska leedahay, iska tuur waxba ay safe gareen. discard baad ku dhufanaysaa. qaabkaas ayaad u isticmaalaysaa point of sale-ka. markaad doonayso point of sale-ka inaad reportyada aad eegto iyo transactionada dhacay maalintaasna waa sales, waa reported sales details halkaas laga eegi jiray. aan idin soo tuso insha Allah. waxaan u malaynayaa casharkan inaad fahanteen maanta oo ahaa hordhaca ku saabsan point of sale-ka. point of sale kiisu intaas uu ka kooban yahay waa file point of sale customers inventory-ga ku jiraan purchase-ka oo laga sameeyo halka vendors-ka laga sameeyo employment-ga oo laga abuuro halkii la iska xidhay programyada iyo reports-ka. intaa weeyaan qaabka yar fudud baad isticmaalaysaa. insha Allah waxaan rajaynayaa khayr inaad fahanteen baan u malaynayaa. halkan laftigeeda intaan ka bixin utility 2 meelood oo baaka laga isticmaalaa. 2 meelood laga isticmaalaa waa preference marka la tago waa 2 meelood waa company iyo workstation. labada qaybood ayuu laga isticmaalaa. company-ga galo company-ga dhammaan waxa laga helayaa account-nadii baa laga helayaa. halkaas waa general storage iyo waxyaalahaas laga helayaa fields-ka ku taabsan. financial-ka oo halkii meel la ka xidhay programyada, inventory-kii, pricing-kii, sales-ka waxyaalihii discount-ka la taxalluqayay dhammaantood halkaas laga helayaa. halka kale laga helayo preference waxaan ku noqdo haddaan workstation ka tago. workstation laftigiisa oo halka barcode-da laga soo xidhayo laga soo saxayo barcode haddaan ku saxsanayn. Allahumma salli ala Muhammad. waxyaalaha account iyo waxaas aad ka soo dooranayso
halkaasaad ka isticmaalaysaa. casharadeenna dambe insha allah waxaan soo gelinaya waa faahfaahsan oo aynu midno soo qaadano halkan laftigeeda oo halka haddaad wax u baahan tahay caawimo aad ka helayso qaabkan intan waa intii aad ku arki jirtay cookbook intaad ku arki jirtay wayaan iyo intaa yaraaka ku taalo iyadoo reportyadii wixii ah departmental sida departmental deerto ku sheegay hadda doonaysan departmental samayso adbaataysa marka tagto departmental iyo hore system baa habal waxaan sameynaa departmental service waa sameynaya service departmental service aan sameeyay taxation-ka waa iska xidhayaan dhanbaan leeyahay departmentka dad koodu sameynaysa waxaas waad sameyn kartaa laakiin si aan saasan ku save gareynaya maarta departmentkii hore ee system baa ka hooseysa iyadana service baan bixiyay departmentyada doonaysa inaad badsato ay meherad weyn tahay ay iibinayso qalabka xafiisyada waxaa laga yaabaa inay iibiso furniture-ka asna waxa weeyaan halkaas departmentka gaar u sameynaysaa qaabkaas departmentka loo sameeyo marka la dheed kareenayo departmentka wala dultaga dadkan dhilid baa loo dhiibaa halkaas dadkan lagu soo dhuftaan waxba dhilid kareen maayo marka qaabkaas ayaa departmentka loo abuuraa halka customer list marka tabaa wax ku soo galaya dadka lacagta ku lahayd inuu intii maal cookbook ay u jirtay uu soo import gareeyay daatada oo exchange oo isdhaafsanayaan waxa cookbook ku jira ka imanayaan waxa kan joogan halkaas tagayaan already waa isku wada waan koori mulaaqanta wala iska dhex wada helaya meel kasta wada helaya ay tabadu ay yaalaan wala helaya waana sabab fiican ee loo baahan yahay waxaan eegayaa daba qofka markuu lacagtii keeno qaabka loo qabto markasta waxa la tagaa mixel qofka ninkii aan lacagta ku lahayn la oran jiray Cabdirasaaq Umar $10 ayuu soo bixiyay markuu soo bixiyay waxaad oranaysaa cash uma tigsaa cash marka tagto halkaas aad gelinaysaa $10 lacagtu soo bixiyay may waxaad tigaysaa waan yara khalday markaad soo doorato markaad soo doorato waxaad tigaysaa halka akoon baad tigaysaa akoon markaad tagto waxaad tigaysaa make payment markaad ku dhufato waxaad tigaysaa safe markaad tiraahdo cash baan kaga qaaday baad tigaysaa labadaas isku saxaysaa marka lacagta qofka laga qabanayo labada markaad isku saxday safe baad leedahay dabeetana waxa weeyaan waad update garaynaysaa maalintii oo dhamaatay star wala shaqada bilow waa update garay daatadii wuxuu qabadsiinaya cookbook wuxuu qabadsiinaya daatadii uu import garaynaya okay waa lagu guuleystay close baan leeyahay warqadiina wuxuu leeyahay ku print garaya hadda doonaysa excel baa durka saadinaysa excel warqadan igu rab halka edit excel igu rab badanaysa dabeetana ayaro dhaatay ayaad ka daabacanaysaa casharkeenan waxaan rajaynayaa inuu noqdo nitus ay taabsi qof kastaaba uu ka faa'iideysto insha Allah intaas aan ku soo gabagabeynaa subscribe garaya channelkan si aan inoo socon wixii commentiana xagoosan ugu dhaafa khayr bani rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee sharafta leh ee daawanaysa channelkaygan YouTube-ka Somali Veterinary taawasho wacan khayr bani rajaynayaa billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullah